بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال ميل والبا جوجتان iyo si walba aad noola socotaan kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha. barnaamijka waxaan diiradda aan ku saari doonaa xidigaha lagu guuldareystay intuu furnaa suuqa kaliibsiga ciyaartoyda iyo kooxaha guuldareystay ayaa barnaamijka ku daawan doontaan. fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhesiina shargaraysi barnaamijkeena uu u gaaro asxaabo badan. mahadsanidina. waxaa si rasmi ah u xirmay suuqa kaliibsiga ciyaartoyda xagaagan iyadoo koox walba haatan ay gacanta ku dhigtay saxiixidii ay ka doonaysay suuqa kaliibsiga ciyaartoyda. waxaa la sameeyay saxiixyo badan intii uu furnaa suuqa kaliibsiga, kuwaasi oo ay sameeyeen kooxo badan oo Yurub iyo adduunka ah. laakiin sidoo kale waxaa jira saxiixyo aan dhicin inkastoo si weyn loo hadalhayay waqti ka mid ah intii uu furnaa suuqa kaliibsiga ciyaartoyda min bilow ilaa dhamaadka ee suuqa. haddaba warbixintan waxaan kusoo gudbin doonaa saxiixyada aan dhicin ee sida weyn loo hadalhayay. Douglas Luiz Arsenal. saxiixa Douglas Luiz Arsenal ayaa ah midkii ugu hadalhaynta badnaa maalintii ugu dambeysay ee suuqa, iyadoo Arsenal 3 dalab laga diiday kuwaas ay ku doonayeen saxiixa xidigana. Douglas Luiz ayaa xitaa ogolaaday inuu ku biiro kooxda Arsenal, waxaana uu kooxdiisa Aston Villa u sheegtay in ay ogolaatay ku biirista Arsenal ka hor intuusan xirmin suuqa, laakiin heshiiska ayaa ugu dambeyn fashilmay. heshiiska labaad ee fashilmay waxa uu yahay Yuri Tielemans. Arsenal xidiga qadka dhexe ee Yuri Tielemans ayaa sidoo kale si weyn loola xiriirinayay kooxda Arsenal, iyadoo Gunners doonaysay in xidigan ay ku xoojiso qadkeeda dhexe. Arsenal ayaa xitaa heshiiska shakhsiga la gaartay xidiga reer Belgium, laakiin Arteta ayaa diiday in ay kooxdiisa ay bixiso lacagta Leicester City dalbanayso oo xidigan ay ku qiimeysay lacag gaaraysa 35 milyan oo euro. xidiga kale waa Julius Kounde. kooxda Chelsea ayaa suuqii xagaagan ahayd kooxda ugu badan ee sida weyn u hadalaysay saxiixa xidigan, inkastoo xidigan intii uu furnaa suuqa kaliibsiga ciyaartoyda uu ku biiray kooxda Barcelona. Chelsea ayaa muddo 2 sano ku raad joogtay saxiixa xidigan Kounde, waxaana xitaa xidiga la gaareen heshiiska shakhsiga, laakiin Barcelona ayaa bedeshay go'aanka xidiga kaasi oo doortay ku biirista Barcelona. Frank de Jong Manchester United. ku biirista Frank de Jong ee Manchester United ayaa ahayd midda ugu hadalhaynta badan ee suuqa kaliibsiga xagaagan, xilli ay Manchester United xitaa Barcelona kala heshiisay qiimaha xidigani. laakiin de Jong ayaa iska diiday ku biirista Manchester United isagoo ku adkaystay inuu doonayo inuu sii joogo kooxda Barcelona, isla markaana uu diiday inuu ku biiro United. Rafinha Chelsea. xidiga Rafinha ayaa ka mid ah xidigaha iska diiday Chelsea kadib markii ay Blues wax walba ay kala heshiisay kooxda Leeds United, laakiin xidiga reer Brazil ayaa doortay ku biirista kooxda Barcelona. Timbe Manchester United. Erik ten Hag ayaa maamulka kooxdiisa ka codsaday in ay u keenaan daafaca dhexe ee kooxda Ajax Timbe, kaasi oo doonayay inuu ku dhiso kooxdiisa xilli ciyaareedkana. Manchester United ayaa muddo wadahadalo la qaadatay laacibkan. xidiga 21 sano jirka ayaa ugu dambeyn go'aankiisa bedelay, isagana diiday Manchester United isagoo heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Ajax. Marco Cucurella Manchester City. kooxda Manchester City ayaa ah koox aan inta badan ku fashilmin bartilmaameedyadooda, laakiin waxay ku fashilantay saxiixa Marco Cucurella kaasi ugu dambeyn Chelsea ku biiraya. Manchester City ayaa heshiiska shakhsiga la gaartay xidiga reer Spain, laakiin Brighton ayaa dalbatay lacag gaaraysa 50 milyan, waana lacag ay diiday kooxda Manchester City in ay bixiso, waxaana ugu dambeyn lacagtaasi bixisay kooxda Chelsea oo ku biiray xidiga. Darwin Núñez Manchester United.
Red Devils ayaa Nunes ka dhigtay bartilmaameedkooda koowaad ee suuqa xagaagan iyadoo Erik ten Hag doonayay weeraryahankan, laakiin Red Devils ayaa ku fashilantay saxiixa xidigana. Manchester United ayaa diiday inay bixiso lacagtii Benfica dalbatay, waxayna taasi keentay in ay Liverpool ku garaacdo saxiixa xidigan ee reer Uruguay kooxda Cesar Azpilicueta Barcelona. Kooxda Barcelona ayaa wax walba u sameysay sidii ay u heli lahayd saxiixa xidiga daafac uga ciyaara kooxda Chelsea ee Cesar Azpilicueta, kaasi oo dooneysay inay ku xoojiso daafaceeda, laakiin xidiga Azpilicueta ayaa iska diiday Barcelona. Ugu dambeyn heshiis cusub ayuu u saxiixay kooxda Chelsea. Cristiano Ronaldo, xidiga Manchester United. Cristiano Ronaldo ayaa xagaagii oo dhan lala xiriirinayay inuu isaga tagi doono kooxda Manchester United. Xidiga ayaa saxiixiisa loo soo bandhigay ilaa 10 kooxood, laakiin waxaa la waayay koox ogolaata in xidigan ay qaadato. Ugu dambeyntii Ronaldo ayaa sii joogi doona kooxda Manchester United kadib markii uu waayay koox diyaar u ah inuu ku biiro xilli ciyaareedkana. guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dan siina share garaysi barnaamijkeena asxaab badan u gaaro.